gudoomiyaha degmada lixaad Minneapolis saad u ogtihiin 4 sano iyo bar ka hor ayaan xaaladii ka taagnay Cedar waan ogeyn aan u dirnay program aan ka jirin xaafadan oo Minneapolis downtown-ka iyo north-ka ka jiray laakiin maanta Cedar aan keenay 4 sano iyo bar ka hor programkan waa dhalinyaro 14 wareegaysa dhalinyaro la hadlaysa dhalinyaro caawinaysa businessyadii relationship la soo bisanaysa oo aad iyo aad programkan community ugu caawiyay oo aan Cedar ka dhicin xabad intaas oo bilood oo ma taqaana dhibaato aan ka dhicin oo xaafadu ay soo noqotay programkaas oo dhalinyaro Soomaali ah iyo dhalinyaro kale oo ajnabi ay isku jireen oo shaqada qabanayeen maanta waxaan ka war helnay programka inuu la go'ay Mayor Jacobna uu gooyay oo administrationkiisa uu gooyay inaysan organization-kan ka shaqaynay meesha oo Soomaalida kaliya oo sirigu la shaqaynaysa in la jaray taasna waa arrin aad u foolxun programkan dhan Torlin laga jaray Cedar Riverside oo la kaxeeyay marka waxyaalahaas waxay tusaysaa community-geena dadka qaylo dheer inay helayaan programkan marka kolay by bisha 17 ayaan ogaanaya laakiin waxaan ku cambaaraynayaa dhammaan una sheegaya administration-ka inaysan ka warqabin xaafadan waxa ka socda aad baan uga xumahay maanta duqa magaalada oo afkeena ku aan luqadeena ku hadla wax walba oo miiska hor dhigo inuu ka soo horjeedsado programkii kaliya oo noo shaqaynayay maanta inuu kala jaro oo xataa ay doortaan organization-no kaleeto organization uu ka mid yahay nin noo yimid city council-ka oo nagu tareedgareeyay McAfee la dhaho referent McAfee la juus garaysto marka aad baan uga xumahay Soomaalina waxaan ogaa inay waxyaalahan ay ka ordaan waxaan jecelahay city hall-ka in la yimaado bisha 17-keeda maalinta contractigaas xaafadaha la kala siinayo waa aragteen Lake Street dhalinyarada wareegta laakiin maanta Cedar laga qaaday kii kaliya aan haysanay aad baan uga xumahay waxaan deganahay Cedar Riverside waxaan ka tirsanahay community-gan Cedar Riverside ما شاء الله waxaan helnay program oo wiilasha youth matrol aad dadka u caawiyeen safety-giisa waxaan ku raahdaay habeenkii xataa waxa maxaan ku raahdaay furan dukaamadii maqaayadihii ما شاء الله أول gaariga markaan banaan ka dhigno waa baka jirnay hadda gaarigii oo furanaan xataa maxaan ku raahdaay aragnaa gaarigii oo iska furan oo cidna taabaneenin crime-ku wuu yaraaday ilmihii maxaan ku raahdaa daroogada way ka yaraadeen jidka dadka jiifana waa ka yaraadeen على waxaan deganahay Riverside Plaza barnaamijkan la keenay aad iyo aad buu noogu fiicnaaday because awal xaafada oo degan geerashka lama gali jirin karaatoon bay dhigteen way seexan jireen waa laga saaray banaankiina waa la kilin gareeyay dhibaatadii dilkii iyo daraaga iyo istilkii waa naga yaraaday xaafadii safe bay noqotay wallahi aad iyo aad baan ugu fiicnayd waxaan ka shaqeynay 2 sano ka shaqeynay iyo bar ciyaalkan waa caawinaynay wax kastaan caawinaynay dharaan siinay wax kastaan siinay waa caawinaynay sida maartin meeshan sida nabadgelyada aad u fiicnaatay waagi hore waxay ahayd waa xumeed hadda nabadgelyada aad u fiicnaatay ilaa haddana maartin barnaamijkii waxa noo qaybiyay waraaqana loo qaybiyay waxa la waa istaagaalay wuxuu ku istaagina ma naqaan ilaa meelaha kale xaafadaha kale waa ka socda arona ma Cedar kaliya ku kooban tahay ma xaafadaha dhan oo barnaamijkooda waa u socdaa waana ka socdaa laakiin Cedar kaliya ayaa lagu istaagay arrintaasna maayarkii arrimahaas ku xiran tahay oo soo dacwoonayna aad u mahadsantahay